ismahaan daahir runtii khayr allaha siiye waxay noo soo gudbisay video aad iyo aad u qurux badan ayay noo soo gudbisay oo runtii xaqiiqatan qalbiga rajo gelinaya. videoga waxyaabaha iga cajabgeliya waxaa ka mid a iyo meelahan aad runtii ii cajabgeliya waxaa ka mid a ila daawada bal qaybtan. alxamdulilah macana waa jawi aad u macaan runtii, waa jawi aad u qurux badan. dabaysha ku marayso, dabayshu maaha dabayl dad kale leeyihiin maaha, waa hawa soomaali ka soo bilaabatay soomaali ku dhammaanaysa. runtii soomaali bay soo martay, hawada macaan, bad soomaaliyeed, dhul soomaaliyeed, geedo soomaaliyeed, xoolo soomaaliyeed, beero soomaaliyeed, guryo soomaaliyeed ayay soo martay, ayay soo jiidhay. markaasay badda korkeeda waxay maryahooda dhaqdhaqaajinaysaa oo ay maryaha kolba dhinac u gedinaysaa. runtii innaga ayaa ka faa'iidaynaa waddankeenna jacaylkiisa, quruxdiisa, inaynu leenahay waddan dalxiis lagu samayn karo, waddan laga samayn karo fiidiyoyo qurqurux badan. marka ila daawo. runtii walaasheen waxay soo gudbisay fiidiyo kooban oo 8 daqiiqa ilaa 9 daqiiqa inta u dhaxaysa ah, laakiin xambaarsan rajogelin, xambaarsan niyadis iyo maskaxda inuu kuu dhiso oo maskaxdu ku qabowdo markaad daawato quruxda. ilan indhaha waxyaabaha indhuhu waxay kamid yihiin waxyaabaha raaxaystay qofka bini aadanka, meelahu ka raaxaysta indhaha ka mid ah, oo meel qurux badan indhuhu markay arkaan raaxay dareemaan. waxaa ka mid ah jidhka kale oo dhan baa ka mid ah. runtii wuxuu xambaarsan yahay qalbi dejin iyo farxad iyo rajogelin. runtiina gabadha walaashaya markaan daawaday waan u duceeyey oo ilaahay waxaan uga baryey inuu gabadha riyooyinkeeda wanaagsan inuu ilaahay u suurageliyo una dhammaystiro ayaan ilaahay uga baryey. sababta annagana rajogelin iyo niyad qiimo badan bay noo samaysay. allaha barakeeyo wiilasha la duubaya ee quruxda badan. kusoo dhawaada muuqaal cusub aa idinkaga soo diyaariyey. waa wiilal aad u qurux badan runtii, ayna inaba ka qasnayn, aadan moodinba inay joogaan waddankii dhibaatada 30 sano ama 30 sano ay saamaysay, inay joogaanba aadan moodin, oyna ka qasnayn oo dalkooda aad u jecel. hadalladay adeegsanayeen waxaa ka mid ahaa waa waddan adigu aad leedahoon cidi kaa xigin, oodan qofna uga amar qaadanaynin. waa hadal aad ii qiira geliyey. bal ila dhegayso. xisaabtana ku darso, wax walba adigaa leh oo marti kama tihid dalka iyo meeliba dalkaba. meesha kale ka daran, meel kastoo ood ka fiiriso fiidiyowga aad buu ku qancinayaa. waxay ka mid tahay ismahaan daahir, waxay ka mid tahay gabdhaha farakutiriska ah ee runtii muuqaallo aad u wata dareen iyo soo jiidasho iyo daljacayl soo gudbiya ayay ka mid tahay. waxaa ka mid ah gabdhaha nasre abtidoon. waxaa kaloo ka mid ah ajmal, gabadha la yidhaahdo. dabcan waxaa laga yaabaa magac kale inay leedahay, laakiin chanalkeeda waxaa ku qoran ajmal. gabadhaana in badan insha allah inaan soo qaatoon ayadana ka hadla ayaan jeclahay. halkaas ayaan kusoo joojinayaa caawa kiliibkii yaraa aan ka sameeyey ama aan ku falanqaynaya ama reactionka aan kaga bixinayey gabadheenna walaasheenna qiimaha badan, quruxda badan, aadda u wanaagsan, na gelisay niyad wanaag, na gelisay rajo wanaag, na gelisay ee aadka u wanaagsan ee fariinta quruxda badan walaaladooda ama walaaladeeda qurbaha jooga ama aan dalkii hooye arag ama aan kusoo caqliyeysanin ama aanba ku dhalaninba hadal xun iyo war xunna looga soo gudbiyo rajogelin badan u samaysay. miyaan mudnay annagoo dhulka quruxda badan leh, badda quruxda badan leh, biyaha quruxda badan leh, gabdhaha qurquruxda badan leh, wiilasha qurquruxda badan leh, miyaan mudnay inay naga dhintaan wiilal qurqurux badan iyo gabdho qurqurux badan, aqoon-yahaniin ah, jaamacada dhammeeyey, magister maraya, digtoornimo diyaariyey, PhD dhinacyaha ku wata, miyaan mudnayn inay naga dhintaan? maya. waa nasiib darra dhankaa markaad ka fiiriso, haddana rajaa ku gelaysa markaad dhankan ka fiiriso. bal fiiri. goobtan waa iskool booliisiya, degmo ahaan waxa ay ka tirsan tahay degmada xamar jajab. runtii madaxayga waxaan u ruxayaa runtii quruxda dalkanagu. markaan dhinac ka fiirino, waa dalka ugu nasiibka daran. dowlad la-aanta 30 sano kor u dhaafaysa, kala dambaynta la-aanta 30 sano kor u dhaaftay, eenaan anagu caqli yeelanay anagoon dowlad lahayn, een wax kala garanay anagoon dowlad lahayn. dadkanagii maalinba qof lagu dilaya aad taqaanay oo aad u jeclayd ama aad social media ka baratay ama toosba u aragtay, maalinba aad waayeyso gabar qurux badnayd, wiil qurux badnaa, 40 sanay fooda sii gelinaysaa. markaad dhankaa ka fiiriso, madaxdeen iyo siyaasiyiintii soomaaliyeed oo is haysata
oo fooda iskula jirta markaad fiiriso mar walba runtii rajo xumi ayaa kuu muuqanaysa iyo inaad nacdo waddankii oo tiraahdo wallaahi waddanka adiga adoon dowlad arag ayay waddankaasi ayaad caqliyaysatay haddana kama soo dhowa sahal ajrigeed adiguna waad ka tegay iyagoo dowlad la'aan ah rajadii baa kaa xumaanaysa ilmahaaga laga yaabaa haddii wax hagaagaan haddii kalena ilmahaaga ilmihiisa haddii kalena naftu waxayba ku dhihiba sidan iyuuba ku dhammaanayaa waddankani xagga kale markaad fiiriso cajiib damaashaadka iyo dhallinyaradu waxay samaynayaan iyagoon weligood meel kale uga bixin waa aqoon-yahanin wax kasta oo caalamka lagu haysto ayay heli karaan fiidiyowga ugu quruxda badan ee adduunka lagu idhit gareeyo ayay ku soo idhit garaynayaan waddankoodii hooyo biyahoodii carradoodii baddoodii geedahoodii ayay wax walba oo adduunka lagu sameeyo ayay ku samaynayaan qurux weeye runtii balila daawo mar walba naftu waxay ku leedahay hadalkaaga ha badinin ee yaree saasay i leedahay naftaydu hadalkaaga ha badinin ee yaree oo aad u dhegayso dadkana u soo gudbi oo la qaybso walaasheen ismahaan daahir waa gabar aad u qurux badan waa gabar qalbi macaan ka muuqdo waa gabar aqoon-yahanimo ka muuqato waa gabar ka muuqato kameramaan inay tahay oo kaameradeeda iyo qalabkeeda ayna ninna u daba istaagin ee ayadu ay wax walba gacantayda ku samaysato runtii waxaan soo daawaday hadda ka hor fiidiyowga iyada iyo Nasra Abtidoon ay cuntada ku samaynayeen bannaanka meesha bannaan ay ku samaysanayeen ee iyadu duubaysay waa gabar dalkeeda jecel waa gabar jecel dadkeeda iyo dalkii ummaddeeda inay u soo gudbiso fariin macaan oo qurux badan oo inay dal leeyihiin aad u qurux badan kalaya fiidiyooyada aad soo duubaysaan ee silic ah ee foosha xun ee meelo qurux badan aydaan haysanin kalaya imaada dalkiinnii oon lagu dhahaynin xaggeed ka timid xaggeed u socotaa ciidan adigu ma lihid luqadaad ku hadlayso waa maxay aan lagu dhahaynin kalaya kasoo duubta fiidiyo qurux badan oo dhaqaale ka samaysaan ood ka samaysaan dhaqaale iyo magac iyo caanbaxba ka samayn kartaan ayay noo soo gudbisay walaasheen ilaahay raalli ha ka noqdo runtii waa arrin qiira ku gelinaysaa runtii xaqiiqatan waa wax lala qiiroodo waa dhulkeenni oo aad u qurux badan runtii waa dhulkeenni oo aad u qurux badan wallaahi caawa waxaan leeyahay ismahaan daahir waxaad ka mid tahay gabdhaha kooban adiga iyo Nasra Abtidoon iyo walaasheen ajmal iyo gabdho kale oo wanaagsanba waxaad ka mid tihiin gabdhaha mudan in lagu daydo ma heestaan ma samaysaan niikin isma qaawisaan keli a waxaad wax ku raadisaan ood youtuberadiinna kaga shaqaysaan wax xalaal ah kusii dadaala walaalayaal inaad saa ku socotaan insha allah biidni illaahi alkariim ummaddiinnana dadkii waddankooda u ammaana sidaa aad samaynaysaana usii sameeya garabkiinna ilaahay idamkiisa guushiinna iyo dhiriimkiinna iyo waxa aad rabtaan waad gaari doontaan insha allah annaguna waxaan idin nahay waan idin sabood garaynaynaa mar kasta iyo xilli kasta iyo wakhti kastaba waxaan kusoo dhammaynayaa dabka quruxda badan ee walaashan ay shidayso bal aan daawano oo ila daawada kusoo dhawaada muuqaal cusub aa idinkaga soo diyaariyey mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan ee ku yaala caasimada